lagu daahfurayay mashruuca tacliinta dadka naafada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankaasi oo ay soo abaabushay hay'adda SSD ayaa lagu daahfuray mashruuc lagu siinayo deeq waxbarasho ardayda naafada ee ka soo qalin jabiyay sanad dugsiyeedka 2019 kuwa oo doonaya waxbarasho jaamacadeed. Waxaana ka soo qayb galay dadka naafada, ururada bulshada rayidka, jaamacadaha dalka ka jira. Qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ayaa ballan qaaday inay deeqo waxbarasho joogto ah siin doonaan dadka naafada ah. Dadka naafada ayaa ku baraarugay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyagoo muujiyay sida ay uga go'an tahay xaqiijinta mustaqbal fiican. sanadkan baa arday aad oo 28 qof dhan baa ku qalin jabinay oo iskoolaadka magaalada Muqdisho ka tirsan bay ka soo baxeen inaan dugsiga sare imtixaankiisa u fadhiisanaba waxay naga qaadatay process aad u dheer. waxaa dhacday jaamacadaha qaar markii sanadkan ardayda soo qalin jabiyay anaga lagu keenay waxay dhaheen annaga qof arag oo kuma bari karo jaamacad weyn oo maxaa waddanka inay ka shaqaysato haddana tira qof arag ama wax ma barayno waxaa aniga nagu noqotay xoogaa culaysa nagu noqotay iyo jabna way noqon qofkii laga yaabo intaasoo dhan baa labada ka soo bartay haddana jaamacadii uu doortay inay dhaqdo maxaa ana wax kuma bari karo rajadulka anigana nagu hoogi jirtaba garaysaa. marka waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan iyo sida jaamacadaha ay isku xilsaareen. waxaana aad u rajaynaynaa waxbarashada dadka naafada ah inaad sida ballan u qaateen aad nooga run sheegtaan oo jaamacadaha kaleetiyo dhammaan iskoolaadka hadday noqdaan guud ahaanba inay maxaa idhaahdaa dadka naafada markay imaadaan la soo dhaweeyo. marka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan ku mahadcelinayaa sida dhibrinta leh ee wax nooga wadaan. qofku ummaddu marka iyada dadkeeda jilicsan iyo dadkeeda maaragtay cilad si uuna ha noqotay ay waxaysta markii ay isbursato unbaa horumar la wada gaaraan. marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan soo qabanqaabiyaasha xafladan. aad baan u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan magaalada Muqdisho nooga furan 3 iskuul tirada ugu yar waa 150 iskuulada wuxuu kala yahay 3 meelood madana qatooda jir wadan qaybta KPP dafad adeefi markuu hore waxaa iskuulada macalinka ay jireen macalin dhawaa bas kadib ardayda waxa waxbarashada ku arkatay waxay macalin oo jaamacad ka soo bixina waxaan barnaa luqadaysan language si fiican u barnaa marka ay ka masha macanka runtii waxaan dhihi karaa waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan taasoo ay hor qaaday SSD aan weli loo arag hay-ad hor u qaaday waxayna dadka naafada u tahay dhiirigelin taasoo ay ku dhiiranayaan inay wax bartaan gabdhaha naafada inay waxbarashadooda hore u bartaan kuwa wax bartay kuwa aan wax baranayna in ay waxbarashadooda hadda bilaabaan mar walbana waxbarashada inay ku dadaalaan la kusho sababtoo ah gaba wax baratay waa bulsho wax barat naafada mid baa laleeyahay qalinka iyo buugga qaata borsadiina ku sito qur-aankii rabbiga iyo xadiisteeda qaaliga iyo tacliinta saynis iyo caafimaad maskaxdiina ku qaata qof wax idiin taraya oo ilaahay ahay ma jiro hal qof oo naafa ninkii tacliin ugu deeqa qoladiina jaamacadaha iyo iskuulladow waxaa la mid tihiin dalka Soomaaliya oo dhan idinkoo waxbaray ayaa la mid tihiin baltaale ogaada xadiis rasuulka Allah wuxuu ahaa man yafacu naasu bihi khayran dadka waxaa u khayr badan ninka ugu waxtar badan laga ordaya orodka unbay lagu dhaamaaya caqliga lagama badna aad baa u fiirsada kaama caqli badna laakiin waxay kugu dhaamaan orodkaa iyo taxadirka adigu marka ilaahayga ku kalsoono naafada kaa dhigay
waxaa farxad weyn ah inaan maanta halkan ku daahfurayno mashruuca horumarinta waxbarashada dadka baayaha gaarka qaba ee Soomaaliyeed. Mashruucan waxaa soo agaasintay hay'adda SASDI ee u taagan mar walba horumarinta waxbarashada dadka Soomaaliyeed. Runtii markii aan arkay sida aan noloshayda ugu maareeyay guulo waaweyn uga gaaray markii aan wax bartay kadib iyo sida ay ii saaciday waxbarashada, waxaa laga maarmaan in noqotay runtii inaan anigana dadka ilaga midka ah aan taageero ku support gareeyo inay helaan runtii waxbarasho tayo leh, taas oo u keeni karta inay guuleystaan. Runtii si aan taa u gaar waxaan aasaasay hay'adda Somali Association of Scholars with Disabilities oo ka shaqeynaysa horumarinta waxbarashada dadka Soomaaliyeed. Anagu ku jirno shaqadaas maanta waxaan iskugu imaadnay mashruucii ugu horeeyay ee daahfur ah ee loogu talagalay horumarinta waxbarashada dadka naafada Soomaaliyeed, kaas oo aan ugu magac darnay Somali Scholarship Disability. Runtii waxaa iska jira markii laga hadlo runtii dadka naafada ee Soomaaliyeed baayaha gaarka ah qaba waxay la kulmaan discriminations. Runtii the only way ay ugu bixi karaan discriminationskaas waxay tahay inay wax bartaan. Haddii ay wax bartaan qofna uma baahno instead ay qof u baahan lahayn ayaga ayaa dadkii u baahan lahayn oo caawinayaan haddii aqoonsigooda ay contribute gareynayaan. Runtii dalladaha waxbarashada runtii ee dalka ka jira waxaan ku boorinayaa inay dadka baayaha gaarka ah qaba inay taageeraan waxbarashadana ay ka saacidaan. runtii jaamacadaha sidoo kale waxaan ku baraarujinayaa ayagana inay doorkooda weyn ay ka qaataan social responsibility-ga saaran dadka baayaha gaarka qaba ee ardayda ahna ay siiyaan waxbarashooyin free ah si ay waxbarashadooda ay ugu meel gaaraan. runtii haddii qoysku ay 5 caruur aan u joogto waxaa laga yaabaa in 4 ka mid ah waxbarashada loo diro, laakiin midka baayaha gaarka qaba aan loo dirin ayadoo la aaminsan yahay inuusan waxbarashada meel dheer ka gaari karin sameynan karin. runtii waxyaabahan qaban doona waxay tahay inaan dadka bulshada ku baraarujino inay dareemaan ahmiyadda waxbarashada ay u leedahay runtii dadka baayaha gaarka qaba inayna tahay wadada kaliya ay noloshooda horumar ku gaarsiin karaan. qofku markii uu wax barto lixadiisa la tamsiye laan meel ay gaaraya. runtii dadku baayaha gaarka qabana haddii wax bartaan waxa suuragelaysa even intii qoyskooda ay ku caawin lahayn in ay ka qoyskooda caawiyaan. runtii sidaas ayaan noo dadku